وحوها نبي صلوات الله وسلامه عليه نلاشا in every aspect قيب كستا نلاشا كميدا قفكو قوليستي سيدا أوجد بي عريري نقون دونتا إني نسكت دينو هل محاضرة إني نكاكا وررنا لكن بإذن الله تعالى وحين نسكت ديدونا إني مقتطفات كوبا ومعالمتي لو حديدي درسك كان كمدا أينو تلمامنو وكصاب سندل شديسي مرضى عدي الناس نوجسي ماشو كوكوري قابكو وكوري هوينكو قورسدي إيوه وحوغا كمدا مراحل دعوتي وقه الرين الله سبحانه وتعالى وحلي وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار إلهي سبحانه وتعالى وحو أبورا وحو دونه استغانا الدور الشضله ولذلك النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه إلهي با أبوري دورتينه الله أعلم حيث يجعل رسالته إلهي سبحانه وتعالى إسقى إياك حيث يجعل رسالته ماشي ولغير الرسالة ديسا أما عدة الرسول الدورانيه مواصفات كإله دي وحق الدورانيه إلهي سبحانه وتعالى إسقى إياقانا ولذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه وحقت المامي حديث كبخاري قصقا إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم نبي صلوات الله وسلامه عليه وحليه إلهي قبيلك كنانة الله يدهدا يكدورتي نبي إسماعيل انتو دلي كنانة قريش بكسي دورتي intay quraysh ka koobnay intay kinaana ka koobnaydna quraysh baa alla ka sii doortay qurayshna reer bani haashim baa alla ka sii doortay reer bani haashimna anuu iga doortay buu nabigu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh idan tafiirtiisa iyo cidduu ka tirsanaanaya iyo qabiilkiisa ilaahay baa u dooray subxaana wa tacaala zamanka iyo meesha uu ku soo baxayana ilaahay baa u dooray sida xadiidkii bukhaari uu leeyahay bucistu min khayri quruuni bani aadama qarnan faqarna xataa kuntu min alqarni aladii kuntu fiih ilaahay baa subxaana wa tacaala quruntii reer nebi aadam uu soo maray kala gedisnayd ee azminada ahaydna halkii zamankii ugu fiicnaa baa alla subxaana wa tacaala ka doortay idan wuxuu ahaa duu nasab sida xadiidkii kale bukhaariye hiraqal markuu waraysanaya abu sufyaan uu tilmaamayay wuxuu ahaa mid reerkooda la doortay isagana laga sii dhex doortay wuxuu ahaa mid zamankiisa la doortay zamankii uu joogayna wakhtiyada kale ilaahay uu ka doortay subxaana wa tacaala wuxuu ahaa meeshu ku dhashee ka soo baxay mid la doortay oo maka ah oo ilaahay beledkiisa meeshuu ugu jeceliyay saa axaadiista kale nebiga ku sugan salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sidaynu wada naqaano magaciisa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa la odhan jiray muxamed ibnu cabdallah ibnu cabdilmuطalib ibnu haashim ibnu cabdimunaaf ibnu qusay ibnu kilaab ibnu mura ibnu kacb ibnu lu'ay ibnu gaalib ibnu fihr ibnu malik ibnu nadar ibnu kinaana ibnu khusayma ibnu mudraka ibnu ilyaas ibnu mudar ibnu nazaar ibnu macad ibnu cadnaan intaa abtirsiinta aan sheegay ahlu taariikh way isku waafaqsan yihin cadnaan iyo ismaaciil inuu min walad ismaaciil ahaana cidi kama muransana inta u dhaxaysa taariikhyahanadu weedho kala gedisan bay tilmaamaan ismaaciil inuu ina ibraahim ahaana waa la yaqaanaa ibraahim iyo aadam inta u dhaxaysana taariikhyahanadu waxyaabo kala gedisan bay tilmaamaan idan ilaa iyo qabiilka cadnaan la yidhaahdo ee carbeed inuu ku abtirsado cadnaanna inuu waladu ismaaciil ka mid yahay iyana waa la hubaa oo uu ku abtirsado nebi ismaaciil oo ina ibraahima wixii ka dambeeyana ibraahim
inuu suu socdo aadam galo waa la hubaa laakiin labada aynood inta ka dhaxaysa taarikhyahanadu ma sugaan yacni si cad loo garan maayo waa un inuu reer cadnaan ahaa dabeetana uu quraysh ka mid ahaa quraysh yaa la odhan jiray taarikhyahanada badh waxay yidhaahdaan annadar ibnu kinaana kinaanada tan qabiil ka tirsan oo nadar la yidhaahdo ayaa quraysh la odhan jiray taarikhyahanada qaarna waxay yidhahdaan maya nadar maahe waa inanku awowga u ahaa oo waa fihr ibnu malik ibnu nadar waa fihirka bay leeyihin ka ah quraysh ka dambaanay u badan yihin taarikhyahanadu qurayshi inay fihirka yihiin nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi abtirsiintiisa loo yaqaanee la garanaya waa taa hooyadiina iyana waa quraysh waa aamina bintu wahab ibnu cabdimunaaf ibnu zuhra ibnu kilaab ibnu mura ibnu lu'ay ibnu haalib lu'ay ibnu haalib bay ka soo gashaa iyana waa kilaab ibnu mura ibnu lu'ay ibnu lghaalib ayaydiisa xataa ka sii horaysa waa bara bintu cabdilcuza ibnu cuhmaan ibnu cabdidaar ibnu qusay dhammaantood maca ayayooyinkii waa quraysh ayaydiisan marka la eego kaasi waa nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi magaciisii iyo abtirsiintiisii wixii laga hayay goorta uu dhashay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxa waxyigu sugayaa inay isniin ahayd oo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xaadiista ka asaxday wuxuu ku tilmaamayaa inuu isniin dhashay waxaana ibnu qayim uu leeyahay waxay isku wada waafaqsan yihiin nimanka taariikhda qoraa inuu maka gudaheeda ku dhashay sanadka caamulfiilka la yidhaahdana inuu dhashay taariikhdii hore carbeed waxay la mid tahay taarikh kastoo dad umiyiin aan wax qorin waa sida taariikhaha soomaaliyeed oo kale gugii waxaasi dhacay dayrtii waxaasi dhacday gugii saa la noqday waagii barwaaqada ahaa dayrtii hebel la dilay waxyaabahay soomaalidu taariikhda ku tirsan jirtay oo kale abaaraha iyo guyaasha iyo wixii la mida dhacdooyinka inkastoo taariikhda bini aadamku sideedaba dee dhacdo un lagu tiriyo dhacdooyinka ka mid a xataa tan miilaadiga aynu hayna dee miilaadu ciisa bay leeyihin ba laga bilaabay dhacdaa lagu tiriyey laakiin taariikhdan carbeed inta la garanayo waxa ay ku tilmaamaan dhacdadii caanka carab ka ahayd ee ahaa caamulfiilka sanadkii loo yaqaanay inuu nebigu dhashay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sanadkii maroodiga alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil sanadka maroodiguna waa ka alla qur-aanka kaga warramayo asxaabulfiilka waa sanad aynu naqaano in niman xabashii kacbada ay ku soo weerareen maroodiyaal saa taariikhdu dhigto taariikhda kale bini aadamka ee iminka la tiriyo sanadkaasi xaguu ku beegnaa qaar waxay dhahaan 570 qaarna 571 buu ku beegnaa bishii uu dhashay teebay ahayd taarikhyahanadu waxay sheegaan inay ahayd rabiic alawal rabiic alawal isniintaasi xaggay kaga dhacaysay uu nebigu dhashay aqwaal baa la soo arooriyaa labadeeda sideedda aqwaal baa la soo arooriyaa uu ugu mashhuursan yahay ama se ugu caansan yahay qowlka sheegaya 12kii rabiic alawal inay ahayd laakiin bidabt ma aha masaa'il isku waafaqsan yahay kuwaasoo dhamme waa masaa'il culamaa'i taariikh aaraa kala gadisan ay ka tilmaamaan laakiin sida mashhuurkaa sida caanbaxday waa inuu 12kii rabiic alawal dhashay taariikhda miilaadiga abril sida wadaadkii maxmuud baashi alfalaki uu ku tilmaamayo abril 571kii abril xaggee buu ka dhashay isagoo abril 20keeda 22 meelahaasoo tilmaamaya rag kalena maalmo kaley tilmaamayaan waayo isagoo abril 20keeda iyo 22 waxuu ku salaynayaa isniin 9kii rabiicul awal ku dhacaysa sida uu isagu sheeganayo calaa kulli xaal nebigu inuu isniin dhashay iyada waa la hubaa inay ahayd caamulfiilla taarikhyahanadu way isku waafaqsan yihiin intaa wixii ka dambeeya waa masaa'il culamaa'i taarikh siyaabo kala gedisan ay u tilmaamaan markii uu dhashay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yaa naas nuujiyey huwayba gabadhii la odhan jiray
mawlaadka u ahayd uu abilahab uu lahaa ayaa naas nuujisay waana ka nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiidka bukhaari ku tilmaamaya inay huwaybi naas nuujisay ardacatnii wa abaa salama huwayba buu nebigu yidhi aniga iyo abaa salama saxaabigii la odhan jirayba waxaana naas nuujisay buu nebigu yidhi huwayba huwaybi waxay kaloo naas nuujisay xamza ibnu cabdilmuطalib oo nebiga adeerkiiya oo waa ka xadiidka kale bukhaari nebigu ku tilmaamaya markii la yidhi inantiisa guurso laa taxilu lii iima bannaana waayo yaxrum min alradaaca maa yaxrumu min annasab hiya ibnatu akhi fi ridaaca buu nebigu leeyahy nasabka waxa ku mamnuuca ah ee aan dumarka aan nasab lagu guursan karin ayaan iyagana lagu guursan karin buu nebigu yidhi haddaad naas wada nuugteen waana inantii ninkii aanu naaska wada nuugnay ee adeerkay xamze markaa walaal buu kula ahaa naas nuugga nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inay markaa huwayba naas nuujisay waa laisku wada waafaqsan yahay culamaa'i taariikh waxay kaloo tilmaamaan xaliima sacdiya gabadh la odhan jiray oo sacdiyada iyana inay naas nuujisay muddana baadiyaha ay ku haysay 4 sano meelaha ku dhadhow oo halkaasi ku soo koray nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh asmaa badan baa u soo arooray magacyo badan inuu leeyay magacyada qaar waa sifaat nebiyada kalena la wadaagaan isaguna uu ugu sii fiican yahay kamaalkuu sifooyinkaa ka leeyay qaarna waa asmaa isaga ku gaara sida xadiidkii saxiixaynka ku yaalla uu nebigu lahaa lii 5 asmaa ana muxamadun wa ana axmadu wa ana almaaxi aladii yamxu allahu biya alkufr wa ana alxaashir aladii yuxsharu annaas calaa qadamay wa ana alcaaqibu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamay inuu 5 magac leeyay xadiidkan sida ku qoran inuu muxamed yahay kii la mahadiyey xamada inuu magacu ka yimi muxamed kii la mahadiyey kii aadka loo mahadiyey inuu yahay iyo inuu axmed yahay isna waa kii la mahadiyey haddaynu wasnu faacilka ka keenno labada midna waxay yidhahdaan waa kii aadka loo mahadiyey midna waxay yidhahdaan waa kii sifaadka badan lagu mahadiyey ana almaaxi aladii yamxu allahu bihi alkufr waxaan ahay buu nebigu leeyahay almaaxi kii masaxayey ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku masaxay gaalnimada waxaan ahay ka soo ururinaya xashrinaya ee dadka qiyaamaha cagayga lagu soo xashrinayo wa ana alcaaqib waxaan ahay ka gebagabaynaya ka cidhbinaya ee aan nebiba ka dambaynin asmaa kalena waa u soo aroortay nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh taariikhdaa yaraantiisa xadiidka saxiixu muslimka ku sugan waa ka anas ibnu maalik uu tilmaamayo rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isagoo yar oo carruur la cayaaraya in malaa'igi qabatay oo ay lagaday oo ay dabeetana laabtiisa dilaacisay oo ay wadnihiisa seerjari ku samaysay oo ay xinjir yar ka soo saartay oo ay ku tidhi haada xadu shayطaani mink taasi waa qaybtii shayطaanku uu kugu lahaa taa macnaheedu ay tahay tasfiya ilaahay uu sameeyey ama taskiya qalbigiisa la safeeyey dabeetana ay u maydhay oo meeshiisii ugu celisay oo uu sidaasi ku kacay oo uu leeyahay anas ibnu maalik siduu imaamu muslim warinayo waqad kuntu araa ahara almakhiiti fii sadri waxaan ahaa buu leeyahay mid arka meeshii malagu uu ka qalay operationka lagaga sameeyey xataa waan ku arki jiray buu leeyahay nabarka jidhkiisii ilaahay baa daahir yeelay subxaanahu wa tacaala aabbihii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu geeriyooday isagoo uurka ku jira hooyadiiyo xaamilo ah ayuu aabbihii geeriyooday siday culamaa'i taariikh sheegayaan kadibna hooyadii ayaa geeriyootay meesha abwaa la yidhahdo iyadoo madiine ka timo maka ku soo socota meel dhexoo abwaa la yidhahdo sida xadiidkii nebiga sheegayay ziyaaradii uu soo booqday xabaasheeda halkaas bay iyana ku geeriyootay alabwaa isagoo 6 jir meelahaas iyo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dabeetana nebigu wuxuu soo koray isagoo agoon ah aabba aan aragba
hooyana isagoo yar oo 4 sano markii murdacadu baadiye ay ku haysay si carabkiisa iyo waxaasi uu af carabigiisu uu soo hagaago markii la soo celiyay 2 sannadood hooyadii la joogay ay hooyadiina dhimatay wuxuu soo koray nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi isagoo yatiimil ab iyo wal ummi labadaba isagoo agoon rasmi ah markii dambana rajaynimo ugu biirtay quraankuna waa ka ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala fi suurati duha waa ka alla subxaanahu wa tacaala ku tilmaamaya in agoonnimo uu ku koray intaa kadib wuxuu galay gacantii awowgii cabdilmuطalib oo aad u jeclaa awowgiina markuu 2 sano hayay buu isna geeriyooday idan nebigu yaraantiisii axaasiis tiro badan oo waalid la'aana buu la soo koray dareen ah inuu aabbo waayey oo hooyo waayey oo haddana awowgiisii soo korinayay waayey waa 3 waalidkii ka mida inuu la'yahay waa dareen runtii qof intaa maray inuu dareemi karayo kadib 8 jir markuu soo gaadhay ayaa haddana adeerkii abu aalib oo carruur badanna haystay xoolo caynkaasiyana aan lahayn baa soo koriyey abi aalibna muddo ayuu ilaalinayo soo korinayay kaasi waa nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi in kooban oo ka mid ah taariikhdii dhalashadiisa iyo koritaankiisii hore marka aynu eegno sifaadkiisii khalqiga ahaa iyo qaabku u ekaa in badan waxaynu aragnaa iyadoo culamaa'i alxadiid ay sifaadka khalqiga ee nebiga tilmaamaan masaa'il sharciga ku xidhan baa xataa jirta nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamay qofka igu riyooda wuxuu i arkay fakaannamaa yacni shaytaanku ima matalay xaqan buu ii arkay laakiin culammadu waxay yidhahdaan waa haddaad ku riyooto isagoo sifadiisii leh nin madow haddaad iskaga riyooto tidhaahdo nebigii oo lagu yidhaahdo waa nebigii aad dhow tidhahdo xalaytee nebigii baan ku riyooday waxba kumaad riyoon weeyaan nin madow baabaad ku riyootee nebigu ma madoobaynbe idan si aad u hubiso ciddan aad ku riyootay inay nebigii tahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inuu nebi moxamed iyo inaanu ahayn waa inaad taqaanaa sifaadkiisii khalqiga ahaa sifaadkay muxadisiintu ka sheegayaana tilmaamaya sidii u ekaa marka aad garato sidii u ekaa hadduu riyada kugu yimaado markaasaad garan kartaa inuu kani nebi moxamed yahay suurada caynkaa u eg baanu shaytaanku isku matali karin amaa inaad uun wadaad duubla iska aragto cumaamad xidhan oo kuwa lagu yidhaahdo waa nebi moxamed inta badan dad badanoo ay dadku arkaana noocaasay isaga badan yihiin waayo nebiguba si ay u eegyihiin ma yaqaaniin wixii ay arkaanba waxay moodaan inuu nebi moxamed ay ku riyoodeen inuu yahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sidaa awgeed bay culammada muxadisiintii waxay aad u tilmaamaan sifaadkii khalqiga ahaa abuurka ahaa ee uu nebigu lahaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu ahaa nebigu nin dhexdhexaada oo aan dheeraynna gaabnaynna labada dhan hadday tahay xagga dherarka xiga laakiin aan nin gaaban ahayn jooggiisa marka la tilmaamo waxaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xagga hilibka qof dhexdhexaada oo aan qof dhuubanoo caata aan ahayn qof buuranna ahayn waxaa tilmaamtiisa kale nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi laabta nin laabta u weyn buu ahaa oo laab ballaadhan leh timo yar oo halkan ilaa xudunta liid yar oo timaa ku leh ilaa xudunta ay xidhiidhiso waxaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ma uu wamataana weynaa gacmihiisa iyo addimadiisuba waa weynaayeen oo gacmo nineedoo ragga ayuu lahaa wuxuu nebigu lahaa gacan kala baxsan oo aan gacan yaroo kooban ahayn oo haddana jilicsan yacni aad buu u sacbiyo gacan jilicsanaa baa la yidhahdaa marka la salaamo ama la taabto wuxuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh cidhibta addinka bay yidhahdaa mid aan hilib badan ku lahayn garabka xagga bidixda xiga labada garab dhexdooda oo xagga ka bidixiga wuxuu nebigu ku lahaa meel yaroo kuusan oo leeg beed xabad beed oo yar oo timo urursana oo ah khaatamu nabuwa
shaabadda nebinimada waxaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wejigiisu miduu aad u qurux badan yahay caddaan mashruub bilxumra bay yidhaahdaan weji cad oo aan xoosh cad ahayne casaan uu ku jiro bay yidhaahdaan weji caddaan uu ku jiro caasuuse ay ku jirto casaan noocahi uu ku jiro oo flowerka oo kale abyadkan midabka yara casaankii uu ku jiro oo kale ayuu nebigu ahaabaa la yidhahaa midabkiisa wejiga marka la eego qaabka wejigiisu mu ahayn mustatiil bay yidhahdeena wuxuu ahaa mustadiir mid wejigiisu uu wareegsan yahay dhabankiisu uu shuban yahay oo isleegyo aan kala dheerayn koodadkiisa iyo dhabannadiisa iyo intaasi waxaa bay yidhahdeen nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ma af yarayn ee afkiisu waa roonaa waa sicilfam ayuu ahaa ma indha yaryarayn ee indhihiisu si fiican bay u ballaadhnaayeen waa indha jeexnaa waxaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh mid timihiisu aan ahayn kuwa sii wada daasan oo timaha tooska ah ma lahayn timaha aadka jacwadada badan leh yacni duuduubka badan lena ma lahayn timo sii daysan laakiin yaro laalaabi kara garaarimo yaro aan badnayn leh ayuu lahaa timaha wuu la bixi jiray mararka qaarkood ilaa halkan shaxmatiludun dhegta laalaadkeeda tan ayay timihiisu gaadhi jireen mararka qaarkoodna waabuu sii dayn jiro ilaa garabka meelaha kan garabka agtiisa meelahan bay gaadhi jireen timihiisu sidaa wuu u feedhan jiray dambe oo timaha waxaynu xagga dambe isaga sii rigo mararka qaarkoodna wuu kala jeexi jiray yacni halkan dhexe intay ka kala rogmaan bay labada dhinac ay u kala rogmi jireen dee maaha saa tima weynteenna kuwan hareeraha u baxee qofkan timaa jirecsan leh qolyahan in la joognay waa aragtay timahoodu inay marka halkan dhexe laga rogo tima caadi u rogmo oo caadi u dhaadhacay inay leeyihiin nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi gadh kafiifa buu lahaa wuu gadh weynaa intan oo dhan gadhkiisi wuu buuxin jiray wuxuu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi mid timihiisu ay feedhan yihiin oo had iyo goor timaha ilaaliyo aada u feedha ciro ma lahayn badan xataa markuu geeriyoonayay ciradiisa waa la tirin karayay bay yidhaahdaan midhadh ayuu madaxa iyo meelahan ku lahaa ciro tirsanta oo 1 2 3 loo odhan karo ilaa iyo intuu ka dhimanayay ciro caynkaasiya ma lahayn ee timihiisu madowgaas bay ahaayeen mararka qaarkood waxay dhaheen madowga casuus baa ku jirtay gadhkiisa iyo kuwa kan nooc min casaana tiibkii badnaayo uu marin jiray daraaddeed bay yidhaahdaan yacni wixii udgoonka ahaa ee tirada badan ee uu ismay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh noloshiisa waxaa caan ku ahayd inuu aad u nadaafad badnaa oo maydhasho iyo isnadiifintiisu inay badnayd feedhashada timihiisa iyo ilaalintiisu inay wanaagsanayd tiibka waxaan la ismariyiyo udugga inuu aad nebigu u isticmaali jiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo ay saxaabadu u yaqaaneen hadduu nebigu meel fadhiisto carfin inuu nebigu ku filan yahay meesha uu soo fadhiisto inuu isagu ahaa shayga caraftee kasoo udugga ka soo baxay inuu isagu ahaa idan culammadu waxay idhahdaan kamaali lkhalqi buu lahaa dhisme jidheed oo qurux badan buu nebigu lahaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yacnii nin meel taagan oo u qurux badan ninnimo buu ahaa marka la tilmaamo dhaqankiisii iyo akhlaaqdiisii iyadu duruus bay u baahan tahay in laga warramo waayo guriga iyo siduu uga dhaqmi jiray mujtamaca iyo siduu ula dhaqmi jiray maamulka iyo siduu ula dhaqmi jiray dagaalka iyo siduu ula dhaqmi jiray marka la eego nebiga dhaqamadiisii cibaadaadkiisii akhlaaqiyaadkiisii marka la eego dhaqankiisu waa waxaan runtii la koobi karin waana xadiidkii muslim ku yaallay caaisha waa tale kaana khuluquhu lqur'aan nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markii la weydiiyey akhlaaqdiisa dee qur'aanuun soconaya buu ahaa bay leedahay qur'aan ayay akhlaaqdiisu ahayd waxaana ugu filan akhlaaqdiisu waxay ahayd in ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamay subxaana wa tacaala wainaka lacalaa khuluqin cadiim waxaad ku sugantahay baa la yidhi subxaana wa tacaala akhlaaq koraysa jumla ismiya mu'akada biadawaati tawkiid ina iyo la wainaka lacalaa khuluqin cadiim waxaad ku sugantahay baa la yidhi subxaana wa tacaala akhlaaq aad u weyn jumla ismiya oo weliba la sii sifeeyo cadiim lagu sifeeyey weedho kooban haddaynu ka tilmaamno waxay yidhahdaan nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ahaa nin aad u mutawaadica
aad isu dhuldhiga oo mutawaadica laakiin tawaaduca ay la socoto bay dhaha haybe ay dadku haddana ka haybaystaan isagoo mutawaadica oo isagoo isu dhuldhigayay laakiin ninku intuu yimi markuu is hortaagay uu gariiray ee uu nabigu ku yidhi maxaad la gariiraysaa anigu waxaan ahay mid hooyadii ay qadiidka cuni jirtay qadiidku waa hilib qaydhin oo inta la wadho dabeetana la cuno hadhow war islaan qadiidka cunta ay dhashay buu nabigu yidhi waxba ha kurbanin idan aad buu tawaaduciisu u tiro badnaa wuxuu nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi aad buu u xishood badnaa geesi haddana wuu ahaa waxaa lagu tilmaamaa inuu aad u gacan furaayo deeqsi ahaa haddana ka dheeraa ismuujinta iyo magac raadinta wuxuu caan ku ahaayo bulshadu ay ku taqaanay ammaanada wuxuu caan ku ahaa asidq fi alqawli waalcamal mid run sheega camalkiisana ka run sheega hadalkiisana ka run sheega wuxuu caan ku ahaa nebigu aلzuhdu fi اdunya cinda iqbaaliha mid dunidu marka ay soo waajahday ku tiro badato isagu ka zaahida oo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xilliyadii dowladda islaamiga xoolaha badan ay heshay isagu haddana xasiir yaroo dhinaciisa ku sawirma buu ku jiifay waa kuwii yidhi aanu furaash yar ku siinna ilaahay rasuulkiisiiyow ee uu nebigu lahaa war aniga iyo adduun maxaana kala galay nin safara baan ahay oo geed ka hadhsaday ee maxaa aniga macmacaankeediiyo waxeeda iga galay tilmaamayey idan markay dunidu soo qaabisho mid ka zaahida oo aan furshaanta hareeraha iska dhigdhiginoo iskaga dhalaalin buu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh marka gacantu madhantee dunidu ay jeesatana mid aan hunguri badnayn oo iska daba ridin sidii xoolo loo heli lahaa ayuu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu ahaa mid acmaashiisao dhan ilaahay u khaalis yeela wuxuu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh carabka iyo afka mid aada u fasiixa oo deggan oo si deggan u hadla oo saxaabada qaarkood ay leeyihin nebi maxamed haddaad istidhaahdo hadalkiisa tiri waad tirin karaysay laakiin isaga ilaahay dee wuxuu siiyey jawaamic alkelim ha la tirin karaya hadal kooban oo macno ballaadhan leh ayuu ku hadlayay oo ka mid ahaa waxyaabihii ilaahay ku gaar yeelay waxaa haabit aljanaan mid qalbigiisu mar kasta uu deggan yahay oo aan baqaha aqoon haddii dagaal lagu jiro iyo haddii nabad la yiyo mar walba qalbigiisu uu deggan yahay waxaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi nin xakiima oo caqli badan waxa ahaa nin intelligent ah oo xusni lfahmiya oo aad fahamkiisu uu sarreeyo wuxuu ahaa mid naxariis badan oo ka weyn iyo ka yarba u naxariista oo dhinaciisu dabacsan yahay wuxuu ahaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi dareenkiisa iyo mashaacirkiisu mid ay sarrayso oo saa daraaddeed dadka cafiya oo iska dhaafa oo ka xumaha sameeya u dulqaata wuxuu nebigu ahaa mid ka dheer ad adayg iyo qalqallafsanaanta iyo adadkaanta wuxuu ahaa nebigu mid sabir badan meelaha dhibtu ay taagantahay ku sabra dhiiran xaqa iyo odhaahdiisa ku dhiiran idan sifaadkiisu nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh khuluqigaahina aad bay u tiro badnaayeen iyana weedhaha koobanaan iskaga soo koobsanno maadaama warkeennu uu tilmaamo yahay ee aanu deris noqon karaynin noloshiisa markaynu eegno wuxuu nebigu la koray sidaynu ka arkayna taariikhdiisa nolol xayaati alcamali waalkadx nolol shaqo iyo ad adayg wadata oo aan nolol raaxa iyo dhaldhalaal ku bilaabantay aan ahayn yacni nolol ad adayg ku bilaabantay buu nebigu la koray maadaama isagoo uurka ku jira aabbihii dhintay hooyadii isagoo 6 jira dhimatay awowgiisii hayay isagoo 8 jira uu dhintay abi aalib uu la soo koray abi aalib wakhtiguu la joogayna axaadiista nebiga ka asaxday yacni xadiidka bukhaari waa ka tilmaamaya nebigu inuu yidhi maa bacata allahu nebiyan ilaa raaci alghanam ilaahay nebi ma soo saarin ilaa iyo adhi buu raacay markaasay asxaabtii waxay ku yidhaahdeen wa anta ilaahay rasuulkiisiiyo adigu miyaad adhi raacday faqaala nacam kuntu arcaaha calaa qaraariita liahli maka haayo qaraariid baan ku raacay buu nebigu yidhi oon reer maka ugu raacay riwaayaad kalena waa soo arooriyaan marka la isku soo daro culamaa ilxadiid waxay idhahdaan adeerkii abi aalib caawintuu caawinaya waxoogaagii xayntii yarayda u haystayna wuu raacay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markuu yaraa isla markaa xoolo kaleo lagu darsadayna
وراعي نبيه وقراريد waxay leeyihiin waa lacag jajabka yaryar lacagta qayb kamida ayuu ku raacay marka waa ujra yani inuu shaqaale noqdo isagoo yar oo xoolo raaco shaqo ka shaqeeyay culimada qaar baa yidhaha qaraariid waa makaan lacagba ma aha waa meel maka u dhowo waa ka laakiin muxadisiintu waxay u badan yihiin inay lacag tahay si awgeed bu bukhaari baab al-ijaara buu ku soo aroorinaya xadiidka markuu warramayo baabka ujrada culimadu waxay kaloo sheegaan racyi al-ghanamka in xikmad badani ku jirto oo adhiga iyo raacistiisa iyo ilaalintiisu inay ku dhadhowdahay ama se u dhiganta bini aadamka iyo ilaalintooda iyo raacistiisa nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi yaraantiisii buu shaqadaasi bilaabay oo wuxuu ahaa mid yaraantiisii nolosha adag ku soo koray dhallinyaronimadiisii waxyaabaha taariikhdu ka sugto waxaa ka mid ah taarikhyahanadu waxay sheegaan laba heshiis oo midna xilfu lfuduul lo odhan jiray midna xilfu lmutayibiin inuu galay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh taarikhyahanada qaarkoodna waxay dhahdaan labadan xilfi isku miduun bay ahaayeen hal heshiisun bay isku ahaayeen waxaana ku soo arooray xadiidkuu nebigu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh shahidtu xilfa almutayibiina maca cumuumati وأنا غلام فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه إنه نبي يري صلوات الله وسلامه عليه waxaan ka qayb galay heshiiskii ama gaashaanbuurtii mutayibiinta waxaanan kala qayb galay adeeraday buu nebigu leeyahay anigoo wiil dhallinyaro ah mana jecli heshiiskaasi aan waagaa galay inaan marnaba buriyo xataa geela cascas haddii lay siinayo heshiiskan culamada taariikhdu xadiidkan imaamu axmed iyo bukhaari fi ladab almufradba waa soo arooriyey xaakim iyo tabraaniba heshiiska kani waxa uu tilmaamayaa qabaa'il carabtii maka deganayda ayaa waxay isugu yimaadeen rag waaweyn oo ka midi gurigii ninkii la odhan jiray cabdillaahi bnu jadcaan nin maalqabeen oo tujaartii waaweynayd ee reer maka ka tirsan gurigiisaa la ysugu yimi waa heshiis lagu galay magaalada maka la yidhaahdo haddii cid lagu dulmiyo in loo hiiliyo ciddaan tolya maadaamay magaalo baac mushtar ahayd dad baa iman jiray baac mushtaro xoolo keensan jiray dadkaasi baac mushtarka ah haddii aanu ama abbaan ku lahayn magaalada iyo cid wakiilka ah oo uu dee magaciisa ku daaqayo wax ku iibinayo ama aanu reeraha meesha u dhashay ahayn waxaa dhici jirtay ragga waaweynee tujaarta qaar ka mid inay iska dulmiyaan culamada taarikh waxay sheegaan nin yaman ka yimi oo meesha yimi oo nin nimankii waaweynaaye carbeed ka mid uu dhacay oo dafiray oo dabeetana gabay tiriyey intuu kacbada tegey oo gabaygii uu tiriyey uu kaga warramayo jaarka kacbada raggiina ahay dulmiga inay iska daysaan oo caynkanoo markaasi sababtaasi ay dhalisay xilfiga ninkaa gabayaagaa gabaygiisa sababtay doontaba ha noqotee wuxuu ahaa heshiiska kani heshiis ay galeen odayadii quraysheed rag ka midi cabdillaahi ibnu jadcaan ninka la yidhaahdo gurigiisa lagu galay oo mucdad heshiiskanina uu yahay inay qofka la dulmiyo wax ka dhiciyaan oo ay uga qaadaan qofka daalimkaa wixii hanti iyo xoolo uu ka dhacay inay uga qaadaan ballan ah ayaa meeshaasi lagu wada galay ballankaasna nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi isagoo dhallinyaro ah ayuu adeeradii kala qayb galay waana ka tilmaamaya maantana inaanan marnaba buriyeen waayo qiimatu alcadaala waa qiima insaaniya ma kala leh inuu muslim galo inuu gaal galo in cidda cadaaladda qofka muslimka waa inuu u taagnaadaa wixii cadaalada gaal iyo muslim iyo cidday doontama ha noqoto qofka muslimka ahi cadaaladun buu yaqaanaa cadaaladdaanu taageeraya in allaha ya'muru bilcadli walixsaan ilaahay cadaalad mutlaquu ina faray wixii aynu ka awoodno idan qofka muslimka ahi cadaaladda mar kastaba waa inuu u taagnaadaa nebigu dhallinyaronimadiisii salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxyaabaha taariikhda qabla albicta ka mid ee la tilmaamo waxaa ka mid ah inuu guursaday gabadhii la odhan jiray khadiija bintu khuwaylid oo ahayd qof dumara oo carmal ama garoob ah
oo hantiileeyo xoolo leh oo xataa sida taariikhyahanadu ay sheegaan nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh hantideedii uu ugu baaci mushtareeyo ka shaqeeyey tijaara uu ku kaxeeyey gabadhaasi wuu guursaday carruurtiisa intii ugu badnayd yacnii ibraahim oo maariya alqibtiya gabadhii la odhan jiray ee boqorkii maqooqas ee masareed uu soo hadiyeeyey mooyaane carruurta inta kaleba 4 hablood iyo 2 wiile kaleba waxa uu dhalay nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh khadiija dhashay dadka waxa caanbaxday ra'yiga waaqidi oo ah khadiija 40 jir buu ku guursaday ibnu isxaaq laakiin wuxuu leeyahay 28 jir buu ku guursaday in khadiija markaasi 28 jir ahayd caqligana waxay ila dhow inay 28 jir ahayd waayo 40 jir inay 6 carruur dhashaa ma fududa laakiin 28 jir 6 carruur waa dhali karaysaa waxaana muuqata khadiija inay 6 u dhashay nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh labaduba biduuni sanad baan rajaynay inay ku soo arooriyeen min xayth sanad haddii la taxqiijin lahaa qaabka xadiidka midina sanad fiican ma haysto laakiin waa 2 qowlo ahlu taariikh midna waaqidi uu soo arooriyo midna ibnu isxaaq ka ibnu isxaaq baana caqliga u dhow maadaama ay khadiija u dhashay nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh 6 carruur ay u dhashay qaasim iyo zaynab iyo ruqiya umu kalhuum iyo faatima iyo cabdallah oo kii ugu yaraaya waa 2 wiil iyo 4 hablood qaasim oo ugu weyn bay leeyiin taariikhyahanadu waa isku khilkhilaafan carruurta kee weyna qaar baa idhaa zaynab baa weyn qaar baa idhaa qaasim baa weyn way isweydweydaariyaan laakiin sida caanka ah had iyo goor waxay sheegaan qaasim baa weynaa waxaana ugu yaraa cabdillaahi oo cabdillaahi taariikhyahanada qaarkood waxay yidhahdaan fii cahdi lislaam buu dhashay walidalik baa atayib aahir loo bixiyey bay leeyiin cahdi nubuwa ayuu dhashay bay tilmaamayaan waa uun 6 carruura 2 inan 2 dacal xigan iyo 4 hablood oo dhexda ku jira 4 hablood iyo 2 inan faatimo marka laga reebo iyo xataa ibraahim oo maariye dhashay 6daasiba waxay dhinteen intuu nebigu noolaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh carruurtiisii 6 ka mida isagoo nool buu nebigu aasay waxa isaga ka geeri dambaysay oo qudha faatima ee uu cali qabay iyana 6 bilood bay nebiga ka dambaysay nebigu markuu geeriyooday 6 bilood kadib ayay iyana geeriyootay idan 6 bilood geeridii nebiga kadib wax nebi maxamed dhalay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo isagu toos u dhalay ma noolayn taariikhda dhalinyaronimadiisa haddaynu wax kale ka tilmaamnay qabla nubuwada ah waxay taariikhyahanadu sheegaan carabi mar inay ku heshiisay in kacbada la dumiyo oo dib loo dhiso sababaa keenay bay yidhaahdaanuun daadad jiidhay waxyaabo cilal bay sheegaan markaa intay dumiyaan inay dib u dhisaan oo ay weliba lacag xalaala ku dhisaan waa dumiyeen lacagtii xalaasha ahayd ee malaa lagu wada dhisi lahaa waa la waayey in baa laga kacay waayo xajarka intan yaree xijru ibraahim inta yaree imaka kacbadaa ku aragteena seerkalka yare sidaasi waxay ka mid tahay kacbada lafteedii in daarta la geliyaabay ahayd inta daartu ka dhisanta laakiin quraysh baa waagaa ka guurtay maadaama lacagta ay ku yaraatay oo sbace ka yar ayay dhistay marka in baa bannaan ilaa hadda intaa ay dhistay qurayshi markii la soo gaadhay xajarul aswadka iyo meeshan uu kaga jiro in la saaro ayaa quraysh isku qabsatay dee qabiilkii sharaftaa qaadan lahaa xajarul aswadka qabiilka meesha geliya dee sharaf dheeraadu sheeganaya markii dambe waxay isku waafaqeen ninka ugu horeeya ee albaabka inooga soo galahayna kala xukumo saa taariikhyahanadu sheegaan nebi maxamed baa ka soo galay albaabkii ay sheegayeen salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxay qaateen inuu yahay alxakam ilamiin mid lagu kalsoon yahay xukunkiisa isna taariikhda xukunkii ku caanbaxay buu u qaaday ah inay go' dhulka dhigaan dabeetana dhagaxa la saaro la qaado meeshii marka la gaadhsiiyana isagu intuu ka qaado uu meesha geliyo marka qabaa'ilkii oo dhammi waa wada qaadeen meeshiina waa la wada geeyey cidana cid marka aanay ugu sheeganin waxaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dhallinyaronimadiisaasi uu ku caanbaxay asaadiq alamiin mid run sheega oo amiin oo la yaqaan inuu ahaa oo xataa markuu hijroonayay iyagoo la dagaalamaya inay wadiicooyinka iyo alaabta u dhiiban jireen runna ay ku yaqaaneen
ومركو فولي صفا يمر ومحو بورتا صفا مركو فولي وصباحا ولها حكو يدي ورهدان إذن إلهضه بورتا قداشي دا عيدا باس سور يويدن ويريا أكنتم مصدقي ما يرميسان يسان سان نقول رميسان ما كو إلهدن ما يدا بين بعيد كو تقاني إذن صادق الأمين بالله يقاني تجارك شقيي وكحديث صحيح أبي داود الألبانية وكتل ماما يا نبي صلوات الله وسلامه عليه فتح مكة markii maka la furtay baa nabiga waxa uu yimi nin saxaabiga oo la oran jiray Asaib ibn Abi Saib markaasuu ninka kan baa mushtar bay wada ahaan jiray nabigu wuxuu ku yiri marhaban bi akhi wa shariki kana la yudari wala yumari soo dhawow buu nabigu ku yiri saaxiibkay iyo walaalkayow waa yani wuxuu ahaan jiray buu nabigu leeyay shariki tijaarada midaanu shuraka kuna haybu ninkan ahaan jiray oo la yudari wala yumari أن مرن يو حبط أنا قانا نين سمح أو تجارة في عن عكس جنا ولا سوء أروريي إنه يعني صايب وراها كروك لها على كل حال وحيام النبي وكشقية وحكم ده التجارة ده صار وضيقانه إن تاريخ ده سوى تاريخ ذي سي نبي صلوات الله وسلامه عليه انتي كهر رئيسي إن waxyigu intii aanu ku soo degin